xalay xilligan oo kale ayaa waxa weerarka uu ku bilowday hotelka Xayaat ee magaalada Muqdisho welina isla waqtigii waa uu sii socdaa waxaana laga joogaa 24 saac inkastoo ciidamada ammaanka ay horumar ka sameeyeen soo afjaridda weerarka hotel Xayaat haddana gudaha hotelka waxaa ka dhacaysa rasaas la isweydaarsanayo haddaba magaalada Muqdisho xaaladeeda ayaa waxa ay tahay mid qaybaha kale ay degan yihiin inkastoo eriyada weerarka uu ka dhacay hotelka Xayaat agarka kilometer 4 xaaladeedu ay aad u cakiran tahay waxa gabi ahaanba hakad ku jiray maanta oo idil ilaa xilligan aan idin la hadlayno ilaa xalay socodka gaadiidka isgoyska kilometer 4 marka aynu eegno dhanka Zoobe wadadu waxa ay ka xiran tahay laamiyaraha Zoobe dhanka kale waxa ay ka xiran tahay dhanka wadada Cabdilqaasim waa agarka madaxtooyadii hore ee Cabdilqaasim dhanka kalena waxa ay ka xiran tahay isgoyska Taleex halka 20 Oktoobar aysan jirin wax gaadiid ah oo ka soo gudbaya ciidamada ammaanka qaybahooda kala duwan ayaa iyagu waxa ay ku sugan yihiin aaga weerarku uu ka dhacay ee hotelka Xayaat gudahana waa ay ku jiraan marka aad eegto gudaha sawirada laga soo gudbinayo waxa ka jirta xaalad aad u adag waxa yaala meedad qaarkood ayaa dibadda loo soo saaray kuwaasi oo la geeyay goobaha cusbitaalada waxaana la tilmaamay in dad aad u fara badan oo ehelada oo kamid ah ehelada dadka ku geeriyooday hotelka Xayaat in ay ku sugan yihiin isbitaalada kuwaasi oo dhooraya meedadka laga soo daabulayo hotelka Xayaat wali wax war ah oo ka soo baxay dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ku aadan qasaaraha iyo weerarka hotelka Xayaat ma jiro waxaa la filayaa in markii uu soo idlaado weerarka in saraakiisha ammaanka ay la hadlaan warbaahinta isla markaana ay xog dhameystiran ka siiyaan howlgalkii ay ku soo afjareen weerarkii kooxaha hubeysan ay ku qaadeen hotelka Xayaat ee magaalada Muqdisho gaadiidka ambulance-ka ayaa wali waxa ay tuban yihiin agarka hotelka Xayaat kuwaasi oo dhooraya inta laga soo afjarayo weerarka si loo soo daabulo meedadka kale ee ku jira gudaha hotelka wixii warar ah ee ku soo kordha weerarkii Xayaat waan idin soo gudbin doonaa hadii Allah